gabar 24 jir ah oo jirkeeda laga soo saaray 158 biro ah. Gabadhan ayaa u dhalatay waddanka Turkiga, waxa uuna qaliinkeedu ka dhacay isbitaal ku yaala gobolka Van ee dalka Turkiga. Dhakhtarkii gabadha qaliinkeeda gacanta ku hayay ayaa warbaahinta la wadaagay in gabadha ay wanaagsan tahay hadda xaaladeeda, balse markii hore ay gabadhan dhibaatada u samaysay cilad uu ku sheegay in gabadhu maskax ahaan ay xanuunsanaysay. 158daas birood waxa ay isugu jireen cidiyo jare, mindiyo yaryar oo ah kuwa qudaarta, cirbado, boolal, furayaal iyo biimanka ay dumarku u adeegsadaan xijaabka. Dr. Tekis oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, daacadii anigu ma rumaysnayn markii hore, laakiin waxaan dooranay qaliinka. Waxaan la kulannay xaalad naxdin leh intii aan ku guda jirnay qaliinka. Waxaa soo saarnay 158 shay oo cabirkoodu kala duwan yihiin. Bukaankeena xaaladiisu waa ay wanaagsan tahay, ayuu ku soo gabagabeeyay warkiisa Dr. Tekis oo ahaa dhakhtarkii fulinayay qaliinka. Dhacdadan ayaa noqotay mid ay indhaha ku wada hayaan wargeysyada caalamka waqtigan aynu joogno. haddaba dhacdada mucjisada leh iyo wixii ka soo kordhaba iyo mucjiso kasta oo dhacdaba waxaad kala socon kartaan barteenaan socdaalka dunida. Subscribe saaro oo nala joog. mahadsanid.